بسم الله الرحمن الرحيم waxaa magacaygu Axmed Aadan Xaashi dadka inteena ba isma naqaano aniga laakiin intooda way yaqaanaan saddex eray dadkan soo saartay ani bas aan jeediyay ilaaha maad iska leh saddexdaas eray aan jeediyay waxa kamid ah waxa loo baahan yahay dhiig hooyo Soomaaliyeed oo umula u baahan ilmo yar u baahan cunta loo baahan yahay saddexdaas eray aan isticmaalay shalay saddexdaas eray heer dadkii wixii gaareen isbitaalada qof kasta oo sariir jiifo uu haysto in ka badan wuxuu cuni lahaa oo raashin ah ilaaha maad iska leh heer waxaa la gaaray gurmadkii dhiig ahaa oo isbitaalada qaarkood ay yiraahdaan wuu buuxsamay waxa kale ilaahay maadiisa ah aniga intaanan halli ka hor dadka lacaga laga qaadaay haday noqoto jiif haday noqoto dhiig haday noqoto dawo laakiin hadda aan kula hadlaayo iyo shalay xilliga aan hadlay kadib waddanka iyo xaaladdu way isbedeleen dadku way soo baxeen gurmad badan dhacay dadkii waxa looga dhigay isbitaalada free in lagu daweeyo ay ku noolaadaan nolol yaani aad u qurux badan waxa suurtageliyay taas ilaahay suurtageliyay ka sokoon codkayga dad kasta oo inta imaadeen oo codkay ku imaadeen waan u mahad celinayaa aniga garbahayga waay dawladda lagu sheegay waa shacabka aniga dawladdu ma shaqeeyo nin shacaba iska ahay muwaadin iska ahay luga magaalada ku maraa luga kaga soo baxaa sida daraadeed waxaan codsanayaa inaan dalkeena iyo dadkeena aan caawino because dadkeena maanta wuxuu baahan bariis hadii la geeyo waxaan codsanayaa in ay ugu bedeshiin lacago sidii waxyaalo yar-yarooti u isticmaali karaan sidii nafaqo waxyaalaha yar-yar u sameeysan lahaayeen waa idin bariyaa gurmadkeena maanta ku ekaan iyana shalay ku ekaan iyana bari ku ekaan hala socdo dadkeena hala caawiyo hala la isku gurmado xitaa hadii ay awoodin is abaabula 10 qofood 5 qofood team isku soo baxa u taga ma aha shardi organization ay urur ina raadsatiin ina waxyaalo sameysteen ayna aad u fiican tahay marka waxaad ilaahay restifin oo ma dicilnaya meel walba joogtiin waxaad ilaahay noolaada waa idin ma dicilnaa shalay waa qiireysna waa murugeysna maanta aad u faraxsanahay runa daartiin aniga lugayga saakay socodkan bilaab ilaa hadda ku socda taas laakiin ilaahay ma hadda iskale ani ilaahay ma dicilinaa ka sokoon idinkan idin ma dicilaa dhamaantiin waxaad ilaahay khayr Allah idin siiyo guuleysta ila ajirkeena hana siiyo khayr caafimaad dirjeena hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida